daawadayaal waxaa imika dhinacayga midig taagan xildhibaan nuur cabdikariin wuxuu sheegay xildhibaan nuur inuu soo guursaday 7 dumar ah da'diisuna ay tahay 9 jir xildhibaanka waxa laga soo doortay gobolka Buuhoodle marka maanta aan burco kuwa kulmay bal hore waxaan weydiinayaa gabadhii koowaad goortu guursaday xildhibaan اللهم صل على محمد gabadhii koobaad waxaan guursaday 3 iyo waxaan guursaday 3 waxaa ahayd 6 jir marka dumarka soo guursanaysa marka dumarka guur ma noqotii goorisadeed waana iga yar weynayd laakiin marka waxaan ahaa nin la guursaday marka anigu waxba ma guursan laakiin markii dambe aan ku ilbaxay ayaan anigu sidii guurka caadiga waan jiray aan u galay waxa jirtay oo dhacday waqti aan anigu malxiisadaydii ii ahayd iyadoo mehersan haddana malxiisada ii ahayd oo soo aan magaranaysaa aan guursaday marka waxa weeye berigii horena hablaha anagu aanu joogna laisma siin jirin laakiin waxa weeyaan waa jar masaafin jirto dibadda waa laska meersan jiray sharcigan imika adkaaday muu hayn marka waa qaadnay malxiisadaydii waa maanta ku aan meheriyey aawana way malxiisad kabacdigii waxaan ka dhigay labadii hablood isku aqal baan ka dhigay dhexdoodun baan marka anigu hoy ii ahaa iyaduna xaggayga xigta yana xaggayga xigta markii dambe iyagaa saaxiiboo dee reer family dee 3 qof oo family isku mid aan noqonay sidii un baan u waday hawshii aan u waday iminka waxaa iigu dambeeyey bishii 3aad midaan guursaday oo 17 jir ayaa iigu dambeysay oo iminka dee aan qabo hadda waa tii 7aad wey marka iminka 4 dumar aad qabtaa ma wax qaban 3 dumarku markaa dee 5 iyo ma banane marba mid baa marka tagto yaad kala guursanay marka bal aad nagu yar noqoto labada habeenka wada aroostay marka marba lagu wadaysiyay labadaba marba labadaba ismooga yahbo mid way aroos tii kale malxiisada aad iyo aad u jeclaayo marka intii 7 aroos kula wuxuu ahaan jiray 7 cisho ayuu ahaan jiray maalin iyo 2 toban maalin 7 casha ayaa naga la aroos jiray marka 7 casho inta aan wali dhamaan 3 markaan aroos ahayn ayaa dawladda malxiisadeedii yaarsaday iyadoo dawladda aroos sabay malxiisadii hadda tahay annagana isugu waa dhismoogidii habeenkii dambe baan ku gabadha malxiisada aad bay ugu taabtay magaranaysaa wayna ugu daaska seexato oo daaska seexato gabadhii saasay guurigii ay ku soo gashay labadiina marba wada qortay waxay ka dhaheen laba wiil bay ka dhaheen marka waxaad ka warbixisaa guurka bay faa'iidadiisa khasaarihiisa guurku waxa weeye faa'iidana waa leeyahay khasaarana waa leeyahay khasaarihiisu waxa weeye markaad wax guursateen waxba kuu dhali waayaan faa'iidadiisuna waxa weeye marka ilaahay umadkaasi ay burqadaan ee ay afartanka u kala baxaan uurka markaasaad ka adkaatay faa'iidadiisuna waa markaa adii ugu badnayd intee ku dhashay waxay dhashay 9 bay dhashay badnayd imika waa imsa carruurtooda waxa weeyaan 53 wey 53 kursi yaa dhalay marka qaar wax dhalay ku jiraan qaar baa jira dumarka habeen qabaan ceelgaab baa ka gaxaystay xamar baa ka gaxaystay waxaan ku meersaday afkoodii kulashada la fooraa iga dhashay habeenkaasaan qabay subaxna la furay midba habeen qabtay habeen wali waa tii ku qarashka baldeed sidee marka habeen baa qabtay qarashka maxaa waa wadi wadaadkii iyo baabu raaci iyo maal waxoogaa yar hawl baan u yar galay magaranaysaa ayaan galay magaranaysaa tii ku qarashka baldeed bee dumarku qarashka malaha beriga oro meelkoodu wuxuu ahaa 20 kun oo shilin buu ahaa qaar baa 8 kun oo shilin ah geel meel ku laga bixin jiray geel baa iska bixin jiray geel waxa weeye dee waxa kalaam ninkii hayaana dee hal iyo laba bixin jiray ama gibid ka badan waa bixin jiray ninkii haya tii aan hayna ayaa malahayn waa guurka ugu la yaabka badnaa bal inta aad ka xusi kartaa xusantahay ku soo qabtay guurkii ku igu la yaabka badnaa naag baan guursaday
بالحقيقة رمتو سيدا اي تاغينا سيدا يا يقول جينا كاسي يدان قاد كلا هيك جوسي وين قوسدي markii aan guursaday ayaa maaji dambe tagto gurigoodii baa tagtay gurigoodii waan dabeedna kuudi gabadhan anigaa qaba waana moogin baa waa lay diiday gabadhii way isxumaysanay gabadhii way dacweysay dadkii markii loo kacay xagga sabraale iyo lukaala qabtay dabadheer dhacday ayaa marka tagtay markii iga soo dacweysay geelo looran jiray ayay iga soo dacweysay geelo isna askar buu ii soo diray dabeedna waxa way habeenkii baa ka timaadey waaba xeerka qoyska baalay xeerka qoyska weeyaan baalay guurkaa xarigaa waxa ku garo 3 sanadood baan galay 3 sanadood baa la helay waxaana ku mutaysay xeerka qoyska ayaa la cuskaday anigu ma garay xeer qoys waa soo garan markaa xeer qoys ma helay markaa 3 sanadood baan gasabada soo jiif 3 sanadood yaa sabada soo jiif bal way ugu dambeyn gabadii bal imika bal maad guurka sii wadi bal maxay ku imika talada qorshaaga wana anigu guurku waa sii wadayaado inta horta libaaxu waxa ninka libaaxa lahaa wadbahalka libaaxa lahaa hadduu ka beero hashan cuna kana ma yiraahdo ilkuuska kama maqamaqsiya wali waa ii leeyahay inta uu isagu gabayo anigu saagi baa